waxaan kuu sheegayaa wax aad horay u ogayd. Adduunku ma aha qorrax iyo roob doog ah oo keliya. Waa meel daran oo xun, waana iska indho tiri kartaa inta aad rabto, laakiin markay ku garaacdo, haddii aadan isdifaacin, waxay kaa dhigaysaa mid jilicsan. Adiga, aniga, iyo cid kasta oo kale ma garaaci karaan sida nolosha u garaacayso. Laakiin guushu maaha inta jeer ee aad garaacdo, waa inta jeer ee aad dhulka la dhaco, haddana aad dib u istaagto oo aad horay u socoto. Waa inta aad xanuun u dulqaadan karto oo aad weli horay ugu sii socon karto. Sidaas ayay guushu ku timaadaa. Xanuunku waa mid ku meel gaar ah. Wuxuu jiri karaa daqiiqad, saacad, maalin, ama xitaa sanad, laakiin ugu dambayn wuu dhammaanayaa. Wax kale ayaa beddelaya. Laakiin haddii aad quusato, taasi waxay sii jiri doontaa weligeed. Farqiga u dhexeeya guusha iyo guuldarrada waa wax yar. Hal tallaabo oo aad daahdo ama aad degdegto waa kugu filan inaad seegto fursadaada. Hal ilbiriqsi oo aad gaabis ku tahay ama aad dhaqso u dhaqaaqdo, waad lumaysaa fursadda. Guushu waxay ku jirtaa waxyaabo yaryar: dadaalkaaga, waqtigaaga, iyo go'aamadaada. Haddii aad riyo leedahay, waa inaad ilaalisaa. Dadka kale marka ay wax samayn kari waayaan, waxay kuu sheegayaan adigana inaadan samayn karin. Laakiin haddii aad wax rabto, u tag, soo qaado. Waqti ha lumin. Ha ka baqin inaad guuldarraysato. Ma guulaysan doontid mar walba, laakiin ha ka cabsan go'aan qaadashada. Waa inaad aamintaa in wax ka duwan dhici karaan. Kan yiraahda waan awoodaa iyo kan yiraahda ma awoodo, labadooduba sax ayay yiraahdeen. Inta badan dadku waxay rabaan guul, laakiin dhab ahaantii ma rabaan si xad dhaaf ah. Waxaad rabtaa guul, laakiin ma rabtid sida aad xaflad u rabto. Ma rabtid sida aad saaxiibtinimo u rabto. Inta badan dadka ma rabaan guul sida ay hurdada u jecel yihiin. Cabsida ugu weyn ee aan qabno maaha in aynu liidano. Cabsideenna ugu weyn waa in aynu nahay kuwo awood badan, ka badan inta aynu qiyaasi karno. Nalkeennu ma aha mugdigeenna, waa kanna cabsi gelinaya. Waa inaad qoto dheer u gashaa naftaada oo weydiisaa: yaa aan rabaa inaan noqdo? Saymi gowaan, kaliya gowaansow. Maxaad rabtaa inaad noqoto? Sidee ayaad u gaari doontaa? Maxaad sugaysaa? Maxaad u noqon weyday kan ugu fiican? Waa maxay hadalkii aad ilmaha u sheegtay? Guushu ma aha inta aad garaacdo, waa inta jeer ee aad garaacanto, haddana aad dib u istaagto oo aad horay u socoto. Dibukak, markelistag hakusanabid. Waa inaad diyaar u ahaataa inaad wax u hurto waxa aad noqon doonto. Dadka badankooda ma gaaraan guul sababtoo ah markay wax baranayaan, way daalaan, kadibna way joojiyaan. Waxaad tiraahdaa, xisaabta ma fiicni. Dabcan ma fiicnid, maxaa yeelay ma baran. Waxaad tiraahdaa, ma aqaan sida loo gabiyo. Sababta waa inaadan weligaa isku dayin. Kartida waa wax dabiici ah, laakiin xirfadda waa wax la dhiso. Haddii aadan nolosha dadka kale wanaajinayn, waqti baad luminaysaa. Ha ooyin si aad u joojiso, u ooy si aad u sii wado. Haddaad xanuunsanayso, ha isdhiibin. Dhibaatadaada wax ka faa'iido. Haddii aad taqaan waxa aad qiimo u leedahay, u tag oo ka soo qaado waxa aad mudan tahay. Laakiin waa inaad diyaar u tahay inaad garaacanto adigoon cidna eedayn. Rag fulayaal ah ayaa sidaas sameeya, adiguse sidaas ma tihid. Waxaad tahay mid ka wanaagsan. Maanta waa maalin cusub. Daqiiqad kasta waa fursad cusub. Waqtigaaga ha iska lumin. Dunida tusi inaad qof cusub tahay. Waan kuu sheegi doonaa, waan kuu tusi doonaa sida aan u weynahay. Injilka cutubka 1:7 ee Luukos wuxuu leeyahay: boqortooyada Ilaah waxay ku dhex jirtaa dad kasta. Adiga ayay kugu jirtaa. Dadka oo dhan waxay hayaan awood ay ku abuuri karaan farxad, awoodda ay nolosha uga dhigi karaan mid xor ah, qurux badan iyo mid aad u cajiib ah. Haddaba maxaad sugaysaa? Xuduuduhu sida cabsida waa wax iska been ah. Hadda kac, guusha raadso.